Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda qaaliga kusoo dhawaada qaybteena ugu dambeysay ee filimka intaan noo socday. qaybteena hore waxay noo maraysay isigoo dhahaa gitaarada guriga dariska ayay jirtaa. kadib booliska waxay usoo noqonaysaa korontada, waxayna fiirinayaan dhalada, waxayna ogaanayaan asigoo qolkiisa inuusan ku jirin. kadib manajerka oo orda ayaa imaanaya, waxaana ku dhahayaa ninka wuu baxsaday. maskiinkana guriga ninka beerta wuxuu imaanayaa asigoo xanaaqsan. kadibna meel walba ayuu ka raadinayaa gitaarada, laakiin habartu way ku qaylinaysaa. ugu dambeyn wuxuu galayaa qolkii gabadha markhaatida aheede, iyadan aad ayay ugu qaylinaysaa, wax walba ayayna ku dhufanaysaa. asigana wuxuu ku dhahayaa gitaarka keen, yacni waraaqada wax ku qoran ayuu tusinayaa. si lama filan ayadoo soo kala tuur rabtana iyada ayaaba soo dhaceysaba. kadib meeshii ayuu kasoo baxaya, laakiin booliiska ayaa imaanaya. shiyaankan waxay ku dhahaysaa aniga inaan la hadla ayaan rabaa. markay u dhawaatan wuxuu tusinayaa waraaqada gitaarada. dib waxay dhahaysaa inaan wax sameynin, wana ogaa gacantaada ii dhiib. ayadoo gacanta usoo dhiibi rabtane waxaan aragnay inay xabad dhacday. markay soo jeesatan waxay arkaysaa manajerka oo booliiska ku dhigay oona ka qaatay bistoolada. kadibna ayaga ayuu ku taagaya, waxaana ku dhahayaa 20 mar ayaa idin dhahay ninkan dambiilo waay, qof ayuuna dilay, idinkan ma maqashin miyaane? ayadan waxay ku dhahaysaa ninkan dambiilo maahan, man laga yaabo inaad dishid. kadib wuxuu ku dhahayaa 3 ayaan kuu tirinaya, dawartay kale xanweys adeegayaan kaa bilaabaya. ayadan waxay ku dhahaysaa midaas ma sameyn kartid. kadib qoriga ayay ula dhigaysaa, xabada ayaana kor u dhacayaan. kadib dhulka ayuu ku tuurayaa iyadoo dhan, haraanta ayuuna kala daalayaa. haraantada markuu kala daalana hooyadeeda aad iyo aad ayay u qaylinaysaa, waxayna ku dhahaysaa gabadheeda waxba ha ku sameynin. laakiin saaxiibkeeda wuu isbedelayaa, wuxuuna isku bedelayayay weliba saayid ayuu xanaaqayaa. kadib waxaan aragnaa dadkoo dhan inay yaabeen, ayna la yaabiyeen ninkan isbedelay. kadibna waxaan aragnaa manajerkan oo u fiirinayo si xanaaqsan. kadibna wuxuu ku boodayaa manajerka, xabad walba wuu uridayaa, laakiin xabad wax ma ka tarayso. sidoo kale booliiskan xabad badan ayay ku dhufanayaan. ugu dambeyn manajerka ayuu korkiisa isku ridayaa, saacid ayuuna qoorta uga qaniinayaa. ugu dambeynna manajerka meeshaas ayuu ku dhimanayaa. habartan aad iyo aad ayay u naxaysaa, dadkoo dhanna indhaha ayay kasoo harayaan. kadibna wuxuu isku dayayaa ninka ritoorka inuu la hadlo oona ku dhaho si tartiiba isku day inaad soo kacid, qof wax ku yeelaysa ma lahan. asigana wuu xanaaqayaa, kadibna wuu soo istaagayaa, gaclisadiisa ayuuna soo dafayaa, meeshan wuu kasoo xarayaa. booliiskan ma laga yaabaa in meel dhow uu aado ayuu dhahayaa. habeenkiina labadooda duurkii ay isla seexanayaan. subaxii markuu waa baryana shiyaanka waxay kusoo kaxaysaa codka familkeeda oo u baxayaan. ayadan waxay u maleynaysaa rayiriyo, markay soo kaxdan waxay isku dayaysaa asiga inay raadiso. asiga markuu yimaadan waxay ku dhahaysaa waxaa rabaa inaan baxo, adigan maku sheegaya meeshaad joogtid, waa ku baryaa meeshan iskaaga tag ayay ku dhahaysaa. dadkan haddii kale way ku dilayaan, iskaaga tag, aniga marweynaan kula joogweyna uunaysaa. asigana si lama filaan ayuu ku hadlayaa, waxaana ku dhahayaa iila joog, laakiin ayada warkiisa ma maqlayso, way ku qaylinaysaa, madaxana way ka garaacaysaa. waxayna ku dhahaysaa iga fogow, waa laga yaabaa inaan kuu soo laabto, laakiin hadda kulama joogi karo, naftaada ayaana khatar ku jirto. meeshan waxay ka tegaysaa iyadoo gadaal usoo fiirinayso. asigana asigoo murugeysanayo meesha kasoo tegayaa. kadib familkeeda ayay u imaanaysaa. ninka digtoorkaana booliiska oo soo badaya, waxaana ku dhahayaa arrimaha ninkan waa inaan xirnaa, kiiskana halkan kusoo gabagabeynaa, waan huwa familkan haddii halkan ka guuraan ninkaas ma soo laabanaya, rabsho dambana ma dhaceyso. ninka taliyahana wuu ogolaanayaa, gabadha ayuuna meesha kasoo wadayaa. ugu dambeyn familku waxay diyaarsanayaan dharkooda, dharkiisa ayayna si xun u fiirinaysaa walaasheeda Siyoon, waxayna dhahaysaa aniga aad ayaan ugu xiisi doonaa. ugu dambeyn waxaan aragnaa qolka asiga uu ku xirnaa jirin ay soo gashay. kadibna waraaqada ayay u qoraysaa, waxayna ku dhahaysaa waan kusoo laaban doonaa maalintayna qatabo. ayadoo oonaysa oo ininta ceshan laasanna waxay kasoo baxaysaa maqaasiinka asiga ku xirnaa jira. waxaan aragnaa waraaqada ay usoo dhaaftay. iskoo dhanna waxay maxsalaameynayaan familka. ugu dambeynna meesha way kasoo guurayaan. 47 sano kadibna waxaan usoo laabanay dib. sheekadan meeshaas ayay ku dhimaysay. habeenkiina ayada iyo gabadhii habartutaa way isla seexanayaan. markay gabadha hurdo kadibna meel ayay soo fadhiisanaysaa oo hurdo way kasoo dhexweynaysaa. kadibna kursiga ayay waxay ku arkaysaa waraaqada markay kala furtaan waxay arkaysaa inay ku qoran tahay waan kuu soo laaban doonaa. ayadan waxay dareemaysaa inuu meelahan joogo, kadibna meel walba ayay ka raadinaysaa. ugu dambeyn waxay imaanaysaa meeshuu ku xirnaa jira. kadib markay gudaha waa u gashay waxay arkaysaa waxyaabo la mid ah oo aad iyo aad u qurux badan. ugu dambeyn waxay soo istaagaysaa qolka asiga ku jiri jiray. kadibna waxay isdhahaysaa fur,
ee la kulan, laakiin waxay awoodi weynaysaa inay furto sababtoo waxay isdhehaysaa hadeertaan waa duqowday man laga yaabo wejigaaga inuu ka helo. Waxay go'aansanaysaa inay meesha iskaga tagto, laakiin ma awoodaysa, way usoo laabanaysaa. Albaabka ayayna si tartiib ah u furaysaa. Ugu dambeyn markii albaabka furtana waxay arkaysaa waxay ka yaabto. Waxaasna wax kale ma ahan, yacni saaxiibkeedii ogaan jirtay sida uu u yaray oo ilaa hadeertaan u yaryahay. Kadib wuxuu u dhiibayaa waraaqad. Waraaqadan waxaa ku qoran jacaylkii gitaarada. Aydan markii aragto gitaarada magaceeda aad ayay u oonaysaa. Waxaan isdhaysaa gitaaradaada quruxda badneed ayuu ku soo xasuusay. Kadibna wuxuu ku dhahayaa waatana gitaaradaada. Markaasna way kasii daraysaa oo way oonaysaa. Kadibna madaxiisa ayuu u soo dhaweynayaa, yacni ay tahay wanaag ayuu sameeyay. Waxaan loo baahan yahay madax inay ka salaaxdo. Madax markay ka salaaxdo kadibna way bayaraanaysaa naagta. Weliba waxay noqonaysaa 18 jirka ayada ahaan jirtay oo kale, yacni indhihiisa ayaa sidaas ka dhigay. Kadib waxay dhahaysaa soo istaag. Markuu soo istaagin hab ayay siinaysaa. Waxaan ku dhahaysaa waan ku faraxsanahay. Asigana wuxuu ku dhahayaa ila joog, waqti ila qaado. Sidaad mar walba qisooyinkii ugu aqrin jirta hadeertaan waa aqri. Aydan waxay dhahaysaa anigu waan duqoobay, adigana qof yar ayaa tahay. Asigana waxaan ku dhahayaa adiga ma duqoobin, wejigaaga quruxda badnaa, gacmahaaga yaryaraa, wax walba adigaad ahaan jirta ayaa ilaa hadeertaan tahay. Duqnimana aniga kaama arko. Aydan waxay ku dhahaysaa maxaa dhahday, aadna way oonaysaa. Kadibna hab ayuu siinayaa. Ugu dambeyn ayada hurdada ku haysaa ayuu ku dhahayaa. Aydan waxay ku dhahaysaa haa, laakiin igama soo dhacayso. Kadib buug ayuu usoo qaadayaa wuuna u aqrinayaa. Aydan way hurdaysaabo. Anigan markaa sheekada halkaa maraysay labadooda way isku soo laabteen, sidaan quruxda badan ayay u wada noolaanayaan, sidaan ayay u yaraan doontaa. Yacni qof walba filim fiirsanaya filim sameynaya wuxuu isdhahayaa qisada sidoo meesha u waday ayay kasoo laabanaysaa. Ugu dambeyn aniga waxaa ku fikiraa ma dhicin duqnimadii ayay kusoo laabatay. Soo ayadoo yaraysa xataa ayada duqay soo kacday. Alxamdulilah waxay ahaataba duqdii way soo kacday. Subaxii ariseedii geesay fiirisay wax uma joogaan, ninkii waa maqan yahay. Kadib waxay imaaday miiska waraaqada saarnay. Waxay arkaysaa qoraal badan asiga oo qore wax walba siday ahaayeen inay yihiin. Ugu dambeynna waxay ku fikiraysaa inay dib u laabato. Dib gabadha habarta tahay waxay weydiinaysaa meeshii aadaysa. Aydan waxay ku dhahaysaa xilboorkii weliba iyadoo niyo jabsan. Ugu dambeyn suuqa gaariga ayay xiranaysaa, meeshoo dhan way kasoo fogaanaysaa. Waxay weydiinaysaa sidaan degdeg ah inay ku baxayso. Aydan waxay ku dhahaysaa rayo rajaab walba aniga aan lahay waan gaaray. Hadeertaan waxaan u baahanahay oo keliya inaan meeshaan ku imaado u laabto, sababtoo qof walba aan rabay aniga inaan arko. Waxaan u arkay sida riyo ahaan. Xalay oo dhan way ila sheekaysanayay. Intaas oo keliya ayaan igu filanaya ku dhahaysaa. Hadeertaan waxaan u baahanahay qoyskayga ii baahan inaan u tago. Ugu dambeyn ayada waxaa soo wacaya ninkeeda ayaan waxay ku dhahaysaa waan kuu soo socdaa. Kadibna waxaan aragnaa ayada waxay isdhahaysaa riyo waaye inay run yihiin, asiga in uu nool yahay weliba sidii uu u yaryahay. Filimkeena quruxda badnaan wuxuu ku dhamaanayaa ayagoo meel kor iska fiirinayaan. Ma aqaan walaa qisadahan wax ka qaldan. Anigu waxaa ku fikiraya iyo wax dhaco ma islahanbo. Dunidan waxaa ku fikiraya sidaa ugu xun. Waxaa ku fiican oo keliya wax walba oo Ilaahay kuu qoray inaad ku qanacdo. Qof walbana qofka Ilaahay u qoray iyo waqti la qaadanaya oo waqtigiis inta badan oo siin doona. Asxaabay aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkayga aad daawateen. Muuqaalkan daa ka hesheen like noo saaro, subscribe noo taabta, gambaleelka furta. Aad u mahadsantihiin. Mac salaam. Waa idin bariyaa muuqaalka share dhaha.